guddiga beelweynta cigaal maxamuud ee guuleed garaad oo shir ballaaran ku qabtay degmada banyaal ee gobolka Cayn ayaa si kulul uga hadlay propaganda iyo been abuur laga baahiyay jiif caaqil Cabdilaahi Maxamed Dheeg odayaasha waxay si aad ah uga hadleen isla markaasina wax laga xumaado ku tilmaameen in jiif caaqilka been abuur aad u weyn laga sameeyo cid kasta oo ku xadgudubtay ayay sheegeen in ay la xisaabtami doonaan labanino u gudboon oo u siman uu siiyay oo mid doortay midna ka saaray meeshii dembigaas hadii lagu helo jiif caaqilka kiiska waa lagu qaadayaa waana lagu maxkamadaynaya lagana saamaxmaayo hadii lagu walaado oo uu san samayn cidii dembiga iyo falka gashay waa laga doonayaa iyana maxkamadda weyn la soo taagaa laakiin saxaafadda anagu cid aan u wakiilanay dibad iyo daakhil haddaanu magacaanahay cigaal ma jirto taas waa ka soo horjeednaa cigaal in laysu adeegsado waa ka soo horjeednaa in isaga la isku garaaco waa ka soo horjeednaa dadweynaha iyo miidiyaha iyo saxaafadda u sheeganaa dembiga loo samaynayo iyo gafka lagu samaynayo inaan macnihii wax ka jiraan ayna ahayn wax barabagandaha ay tahay cidii qabatay dembigeeda iyo fadeexadeeda iyo fulxumeeda ay iska leedahay dibna lagala xisaabtamaya haddii ilaahay idmo waxaan kaloo u sheeganaa dadka oo dadweynaha u sheeganaa baasha shaabadda la wareejinayo ee laleeyahay jiif caaqilkan xildhibaan u saxeexay ciddii samaysay iyo ciddii foojarigareyshay iyo ciddii golaha keentay foojarigareeyay la og yahay yaanu ka rabnaa dembigeeda haddii ilaahay idmo kalena xisaabtamanaa gola guuleed garaadna kula xisaabtamanaa jiif caaqilkuna wuxuu caddaynayaa oo bayaaminayaa arrintaa iyo shaabadda la sheegaya inuusan tiisiina ayn ahayn barbaganda iyo fadeexadayn isaga lagu xumaynayo ay tahay waxaan dadweynaha iyo dadka islaamka u sheegaynaa inay tiisiina waa lagu been abuurtay jiifka meel baa looga dhacay foojariga warqadda shaabadda foojariga waxaanu leenahay haddaanu odayaasha beesha reer cigaale galabta halkan saxaafadda laga duubayo waxaan laga ogeyn ma samayn karo jiifku waa wax meel looga dhacay iminkana haddii ilaahay ka dhigo waxa weeyaan arrintaa in aan lagu dhakin jiifka waa u sameeyeen labada nin ee midna laga qaaday midna la saaray waxaan aad uga hadlaynaa aanu ka wada hadlaynaa oo beesha cigaal maxamuud ay ka hadlaysaa saxaafad lagu cambaareeyey jiif caaqilka guuleed garaad oo laga qabtay wurwur iyo dabadda oo aan reer cigaal ogeyn oo aanan la socon oo aanan waxba ka ogeyn oo reer cigaal ka wada hadlin oo isaga imaanin arrintaa way arrintaanu ka hadlayna waxa weeye nimankaa cid aanu u wakiilanay oo haddaanaba kuulayay reer cigaal ka matalayaan ma jirto haddaanaba kuulayay ninkaa jiif caaqilku warqaddaa la leeyahay uu yidhi waa been abuur foojariya oo anigu ma samayn oo ma saxeexin dawladaha iyo maamulada miidiyaha iska cambaareeyo iska canjarafeeye qabiilku inuu miidiyaha iska cambaareeyo ama madaxda laga aflagaadeeyo waa wax mustaxiil weeye haddii jiifku dembi cid ka galay oo cid wuxuu sheeganayso waxaa loo baahan yahay in qabiilku dee odayaashiisa iyo cuqaashiisa kale iyo waxgaradkiisu ka wada hadlo hawsha saxaafadda macnaha la sameeyey wax macnaha ka dhacay maaha jiifka waxaanu caalamka u sheegaynaa macnaha mataqaanaa hawsha ciddii dembigaa gashay lagu cambaareeyey jiifka ee been abuurka mana geeyo qabiilkana maaha in hawsha macnaha mataqaanaa saxaafaddu lagu qabto lagu xumeeyo hawsha ciddiina baanu ka daba joognaa annagoo ah beesha cigaal maxamuud assalaamu calaykum taariikhdan kaygan ilahaa garyo wada hadal hortii garowso waxaan ahaa goortii u horreysay geygan ingiriisku yimi heshiis anigaa la galay